وعند وضيال ومركل يوريسيجا تضبعتك أو أنه إذا كجسوا قد بلينو استوديها تي في يونيفرسال وكل هاي مقالة نيروبي وريسيجا تضبعتك وح حلقا مرتين وجوه أمباسدور محمد حسين أوليو أو سياسي سوماليات من داير أقوياء وحكى استوقف في هيبة وشغل كلي أن كسر دوا مركه تي في يونيفرسال مركه حاجة وحن جعلان لها أن موضوع إنه حنو كجهد لنا بالسياسة الجودة الصومالية قارهن معمول قبل ديدا يدولة ده خلافات كيرد مدينة أدحية مع المهن أن محل ليه كرام حوصلك كوهيا بسم الله الرحمن الرحيم حمد كذي أديك إيو معمول كتلفزيون يونيفرسال تي في وأنا آدي تشعلهاي ملكيلي سهل نقطية دمان شغاليه سبا كاميرمان مولود يا دمان شغالها وندي السلامية بعض ما تصنتي وان كله برنامجك أن خلافاتك سواء أما مدمدوا سواء حكاية معمول قبل ديدا هي دولة الدحية الصومالية أن معمول قبلات هو خير كم من الدولة محل إيه كرنا محل هو معناه كره حلقة دولة دي ولي عردنا آد maantay oo aan halkan ka hadlayno 8 February 2017 dawladii la soo dhisay madaxweynihii la soo doortay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta 8 bilood iyo 13 bari laga joogo xamdikeedii waxa qof walba uu filayay in ay eersan doonto waxaad xasuusatiin shacabka Soomaaliyeed say iskugu soo baxeen sida loo soo dhaweeyay sida loo rabay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorashadiisii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qof walba wuxuu filayay oo sida dawlad socoteen ama artikelada Soomaaliyeed oo lagu qoray ha noqoto ama aqoon-yahanada yaani wax analyze gareeya ha noqotee qof walba wuxuu sheegayay dawladaha dariska iyo maamul goboleedada inay eersanayso mana aha wax maanta ay tabilowday hadaa dib taariikhda u raacdo xamdikadiye waxaad arkaysaa dawladihii hore soo jiri jiray intaan dawladnimada la qaadan SYL markii la sameeyay kuwa diidana oo lahaa waxa weeyaan waxa rabnaa inuu Talyaaniguna maamulo xornimadii kuwa diidana markii la soo gaaro dawladii waxa weeye 7 sano oo rayidka kuwa diidana oo macaarada hayay oo sheeyuhu lacag siinayeen rag baa jira waxa weeye hadaa tagto librariyada adduunka ama aad arkiifyada westernka aad dib u raacdo Talyaaniga Ingiriiska iyo kale rag baa jira bay isliibiyadoodii mushaarka ay ku qaadan jireen iyo sababaha ay u qaadan jireen xataa ay ku yaalin oo loo adeegsan jiray inay dalka iyo dadka iyo diinta lagu burburiyo ama dawladii hore ahaadeen ama kuwa dhaxaadeen ama tan maanta ha joogto marka khilaafkani oo maamul goboleedadu maanta ay la yimaadeen iyo dawladaha ku majaxaabinaya dawladaba waa nabar la filayo naxdin mooye nusqaan mooye naxdin ma laha sababtoo waa wax la sugayay waa wax la filahay exactly sidii ay wadaniyiinta Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed ay ugu qanacsanaayeen ama ay u filayeen bayna wax walba u dhaceen xamdikadii marka la fiiriyo maamul goboleedyada dawladda dhexe Soomaaliya waxay labada gole ee dawladda maamul goboleedyada ka yimaadeen dawladda laftirkeeda maamul goboleedka ay wax ku tahay ma isleedahay maamul goboleedyada hadda Hiiraan oo kale Hirshabeelle mas'uulkiisa intaan ku wareystay Ali Cabdullaahi Cusable wuxuu sheegay in dawladda ay duminaysay oo isaga xilliga uu joogo ka shaqeysan waay shalay xaaf wad arkaysay diyaaradda uu soo raacay xataa Hargeysa lagu xayir inuu yiri dawladdu ma waxa laga rabay inay maamulada jiro dhisto oo kabto mise inay ku dhisnaa si baabiiso waxaan rabaa inaan halkaan horta kuugu soo gudbiyo 8 qodob oo maamul goboleedada ay dawladdu ku amartay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigu uu yimid uu kala waxa weeye uu ku amray wasiirada golaha wasiirada iyo wixii loo qabtay marka ka bacdina waxaan u gudbaynaa Ali Cusable iyo Xaaf iyo ninka la yiraahdo Cabduwali Gaas iyo Shariif Xasan iyo sideedaba maamul goboleedadu waxay yihiin koow dawladdu markii ugu horeysay oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yimid waxa ay maamul goboleedka ay maamul goboleedada kula heshiisay inay arrimaha qaranka ay kala tashatay arrimaha qaranka ay kala tashatay waxay kala shaqeysay in ay si wada jir ah looga qaybgaliyo shirkii London waxa kale oo siisay 8 bilood la soo dhaafay waxay siinaysay lacagihii
oo maamul goboleed kasta 150,000 oo US dollar ah la siinayay waxa la siinayay taakuladii ciidamada waad aragteen ama militariga ha noqoto ama booliiska ha noqoto dareyskoodii waa tii la siin wax allaale iyo wixii maamulka gobol dhexe ay ku lahaayeen afar waxay kala tashatay dhismihii xukuumadda oo maamul talaabo lama qaadin wasiirada iyo wax oo dhan iyo maca ra'iisul wasaaraha waa lagala tashaday shan waxa loo labo goor lagu marti qaaday shirkii golaha amniga qaranka laba jeer ayaa lagu maamul goboleedada dhan waxa weeye lagu marti qaaday waxa gacan laga siiyay ka hortagga abaaraha dalka markii lacagii la aruurinay waa ogeed ka hortagga amaaraha guddigii abaaraha degmo walba iyo maamul goboleed kasta waxa la siiyay lacagtiisa loo geeyay waxa dhammaan caasimadaha dawlad goboleedka lagu qabtay waxa weeye shirkii dib u eegista dastuurka maamul goboleed kasta waxa weeye magaalo madaxdiisa waxa lagu qabtay dastuurka dib u eegistiisa wasiirkeena xoos jibriil iyo ama kismaayo ha noqoto gaalkacyo 8 sidii ciidamadii xooga dalka sidii loo dhisi lahaa ayaa waxa weeye ayaa xataa lagala tashado ayaga waxa weeye habdhiskii militariga xooga dalka Soomaaliyeed ayaga lagala tashaday inta marka la sameeyay markii dakhligii dhexe wax laga siiyay markii waxa weeye aysan ayagu haba yaraatee dawladdu waxay ka tabanayaan aysan jirin waxa ayaan darro ah waxa weeye maamul goboleedka in ay waxa weeye lagu adeegto oo nacabku ku adeegtaan soo noqo marka على عصبله waxa la ogaa in uusan rabitaanka deegaanadaas ku imaan waxa keenay raggii hore xukuumadii horeysay waxay ahayd dawlad gacan ku samays ah oo xukuumadii hore oo Xasan Sheekh Maxamuud uu ka tagay ah waxay ahayd iyadoo sidaas tahay ayuu wuxuu si cad ula galay dagaal oo ula socota waxa weeye dawladii dhexe waxa la socota inuu kala qaybiyay waxa la socota inuu qabyaaladii 1991kii laga gudbay uu yiri sida maamul goboleedka Puntland ay ugu taagan tahay ay u dhistay Jubbaland oo kale ayaan anigu waxaan u dhisayaa waxa weeye banaadir laan aan u dhisayaa wuxuu dhex galay arimihii wuxuu joojiyay diyaaradihii qaadka wuxuu dawladda ayuu si toos uga soo horjeetay wuxuu keenay qabyaalad laga gudbay wuxuu keenay dibhorin shacabkaana iska qaaday haba yaraatee dawladdu wax haba yaraatee ay gacan ku lahayd ma jirto haba yaraatee sidii waxa weeye shacabka ayaa maamulka ayaa Cali Cabdulle shalay waxa keenay raggii tagay maantana shacabka iska tuuray midka iyagu soo dirteen baana jira xaaf u soo noqo marka xaaf Nairobi markuusan ka tagin labadii maalmood u dambeysay waxa weeye si toos ah ayaan aniga iyo rag aan ku jirno waxaan rabnay inaan u kala dab qaadno cabashadii uu asagu madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka tabanayay waxaan horey u ogaa bil iyo 8 casho waxaan isla joognay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Maxamed Cali Xareed baan waxaan isla joognay United Imaaraat Arab waxaan shaahid ku ahaa on isku hotel deganayn gaari baa dhigaya gaari kala soo qaadaya gaari baa dhigaya gaari kala soo qaadaya muqaabaraadka waxa weeye waxay noqotay inta 10 jeer u yeeraan waxaan ku yiri dalkaaga ayaa Maxamed Cali Xareedow kaaga haboon عمر عبد الرشيد iyo Safiya Base iyo DB Wall iyo United Imaaraat Arab muqaabaraadkeeda inaad maaragtay maanta la shaqeyso inta wuxuu u kala dab qaadayay 1 bil iyo 8 casho Maxamed Cali Xareed si uu waxa weeye Cabdiwali iyo Shariif Xasan oo iyo Cali Cusable uu ugu soo xiri lahaa wana wax qarsoona ma aha imaaraatigu waxay jabiyeen international law waxay ku xadgudbeen sidaad maqlayseen ra'iisul wasaaruhu UN-ta uga dacweeyay waxay si cad oo bareera u soo gashay in ay faragelin ku samayso qaranka Soomaaliyeedna ay jilbaa u dhigto Maxamed Axmed Al Uthman waxa weeye wuxuu galay shaqo safiirnimadiisii ka baxsan wuxuu galay wax aan haba yaraatay qof aan loo dul qaadan karin waxay rabaan siday Afghanistan madaxweynihii u bedeleen ama Pakistan ay u farageliyeen inay anaga jilbaha noo dhigaan waxa la socotiin sanadkiisii kale konton iyo kow ganacsataa oo baasaboorka Djibouti wata walaalaha aan dalka aan walaalaha nahay in ay ku eriyeen
kadib ismaaciil cumar geelle markuu dekadiisii intay 10 sano maaweelinayeen markay u dhisi waayeen dekadii Djibouti oo China keensaday ayay waxa weeye ayay banaanka dhigeen ka bacdina waxay ku tashadeen si Djibouti aysan dekadeedu aysan productive u noqon Ethiopia la xirteen waa la socotiin barbaray qaateen waa la socoteen ma waxa rabaan wax yar waa very important annagu og sidaas ah oo ku taxgelinayna walaalaheen islaamnimada ku taxgelinayna annagu ku taxgelinayna ayay advantage naga qaateen imaaraatina annaga bil xaqiiqatan dawar dhacday iyo danaha Soomaaliya oo qurub u kala gooyaan oo cadawgeena la shaqeeyaan ma ayna wax haba yaraatee wax aan ku qabna haba yaraatee ma jirto waxa dhan oo ordayaan hadii annaga dekadeedu ay soo baxdo hadii ay baalkeedii la ku rooyay ee saliideedu soo baxdo hadii khayraadka iyaga la helo waxa weeye annaga khayraadka iyaga ayay hortaagan yihiin waxay rabaan oo si toos ah heshiis ula galeen sida ula jeedeen barbara heshiiska dekadii lagu galay Ethiopia ayaa waxa weeye 15% laga siiyay imaaraatiga DB wall xagee Ethiopia ka soo gashaa cadawgayaga waxaan ku sheegayaa marka habar xamdi xaaf waxa irbad suran ku dhiftay maxamed cali xareed waan la hal madaxweynaha 8 jeer intuusan tagin baan aan la hadal siiyay waxaanu la niri waxa laaliye waxa tabanayso qarannimada ka weyn maxamed cali xareed koontadii uu soo waxa weeye dhiilku uu soo xiray asaga oo 3 saac xamar laga sugayo 8 saac diyaaradii halkan ka baxaysay ayuu qaatay muqaabaraadka imaaraatiga inta soo waceen baa leeyahay ma soo raaci kartaa markii aan ay ogaadeen inaan u kala dab qaadayo waxaan ku sheegayaa marka dalkan waxa weeye xaaf nin oday ah oo soo jireen ah oo loo qaateen oo laakiin wuxuu lugta ku galay nin haba yaraatee wax qadiyada aan lahayn oo qadadoon oo maxaa cali xareed leeyahay aad baan uga xumahay dhaliyada waa gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka galmudug dhaliya haday noqotana ilmaadeer baanahay waxaan ku sheegayaa xaaf ninkaas baa wuxuu weeye jaranjarada ka tuuray waxa weeye dalkii Soomaaliyeed ayuu inta dadkii cadawgii kala goynayay ayuu u raacay aniga dawladda maanta inta maxamed cabdullaahi farmaajo one single pen ima siiso mana waxaan u arkaa inaan anigu mas'uul ka ahay dalkayga waxa weeye marka waxa weeye xaaf maamulkii hadda cali cabdullaahi cusable oo madaxweynaha ka ahaa waxa keenaa tir dawladii hore shaqadeeda ee dawladda shaqay qabsanaysa in maamulada dhista waa wixii loo doortay dawlad u ahayd ujeedku ma dawladii hore wixii ay sameysay in la burburiyo dad cusub la sameeyaa haba yaraatay hadda waxaan ba ku sheegay maxamed cabdullaahi farmaajo galmudug aan shalay cabdikariin guuleed ogeyn maanta xaaf aan ognahay maanta waxa sharaf u ah shacabka Soomaaliyeed waxa weeye wasiir shaqadiisa lagu haysto ma jirto ra'iisul wasaarihii ayaa wuxuu tagayaa shirarkii madaxweynaha intaas oo shir oo kii African Union ka noqoto kii IGAD ha noqoto kii qaramada midoobay hadda u dambeeyay ha noqoto mid walba madaxweynaha waxa weeye ra'iisul wasaaruhu hawsha u akaystay maxamed cabdullaahi farmaajo iska daabal wax kale dadkii from president to baalashle madaxweyne ilaa iyo kaba cadeeyaha noqon jiray ma aha maamul goboleedka waxaan ku sheegay 8 qodob oo maxamed cabdullaahi farmaajo kula dhaqmay maxamed cabdullaahi farmaajo xaaf markuu u tagay wax allaale iyo waxa tabanayso wax allaale wax rabto diyaar baan ku nahay 3 saac 8 jeer ayuu xataa telefoonka dansaday ilaa xildhibaan ku cadeynaysaa anaba breacher oo ana breach u aha waxa way intaas oo milyan waxa ay daawanayso waxa aniga beenka ma sheeka marka waxa weeye maamul nimankan maamul goboleedka habar yar shalay waxay ahayd sideedaba ogow markaan ku sheegay bay isliibka gumaystuhu Allah ayo Frenchki muxuu nacas fariiday ninka ugu xun ayaa waxa la rabaa in qayb iyo xukun ay tahay shalay markii la sameynayay waxaan 4.5 baa ka horeeyay waxa ku meel gaar baa ka dambeeyay waxa ka dambeeyay wax la yiraahdo federal maamul goboleedada ugu dambeeyay waxa soo dhan waa qayb iyo xukun dawladii Sheekh Shariif oo jirta xukuumadii Sheekh Shariif ayaa Barack Obama si cad wuxuu u yiri annagu maamul goboleedadan tayeynayna dawladii dhexe lama tayeynayo waxa ku tusinaysaa marka tan la empower gareeyo la tayeeyo la weyneeyo lacagtii la siiyo oo NGO-leedii iyo maamul goboleedkii iyo wixii lagu tayeeyo waxa dhaqaalaha la siiyo dawladiina waxay qarashaadkii oo ku bixisay ay weydo ayadiina la dacay waxa ku tusinaysaa in aysan waxa weeye haba yaraatay qaranka Soomaaliya reerminoo soo kabto waxaana wax bilow habar ma aha waa gartay waxaan ka rabaa dawladda waxaad ku amaantay wada shaqaynta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa wax fiican maamul goboleedka ka daray waa wax fiican waana waxa looga baahan yahay labada mas'uul inay wada shaqeeyaan hadii khilaafiyo ay jiri jireen shaqada ay qabato hawsheeda amaan gaar kuma leh waxaanu ka hadlaynaa dhaliilaha ay leedahay si ay isu saxdo ma nihin mucaarad dawladda diidan laakiin haddana ma nihin afhayeen u shaqeeya waxaan ka rabaa maamul goboleedka waxay dhaheen
wax allaaleeya wixii dhaliila annaga waana naloo sheegi karaa waana naloo soo gudbin karaa waxaana laga furay xarunta waxa weeye cabashada ayaa xamar weyne laga furay xafiiskii ugu horeeyay dawladda 6 bilood muddo yar jirta sanad ma gaarin 8 bilood jirta waxaan sanadka yar joogtaa in hadda waxa muuqda inay galmudug khilaaf ka dhex jiro hiiraan shalay inay khilaaf u ka dhacay Puntland inay taagan tahay dawladdu maamul goboleedyada ay wax ku tahay inay la tashatana waa waxay madaxda ugu tahay oo dawladda ugu tahay maamul goboleedyaduna dad iyo deegaan ay matalaan haddii maamulka iyo dawladda ay wada shaqeyn waayeen dawladda laftirkeeda jiritaankeeda khatar ku ah waxaan ka rabaa ma dhihi karnaa dawladda laftirkeeda waxay ku mashquushay shaqo guud ay qaban lahayd waxa waqti kaga dhumaaya sidii shaqadii shalay Kismaayo iyo Xasan Sheekh haysatay inay maalina Hiiraan ku mashquusho maalina Galmudug ku mashquusho maalina Puntland oo waqtigeeda ay ku dhumiso ma ana habar yar waxa xamdi kadiye waxa meesha ka jira waa nabar la filaaya naxdin ma leh dawladdan waxa la daayay muddo 6 bilood ha loo aamusay cadawga soo jireenka oo Soomaaliyeed markii ay shacabkii iyo dawladdii isla jaan qaaday markii shirkii London maamul goboleedadii ilaahay horti inta gacmaha isqabsadeen Soomaaliyeed toosoo qaadeen sidii looga loogu maqsuuday waxa loo fakiray sidii shacabka madaxweynahan iyo shacabka loo kala reebi lahaa laana hadii shacabka Soomaaliyeed iyo madaxweynuhu isla jaan qaadaan waxa weeye waxaad ogaanaysaa haba yara inay qarannimadii Soomaaliya soo noqonayso talaabooyinka ay qaadeen baa kamid ah xafiisyadii waxa weeye cabashada la furay waxa la furay guddiga taakuleynta ciidamada la sameeyay waxa la sameeyay kaasoo looga diyaar gareeyo diaspora oo dhan iyo adduunyada sidii Pakistan iyo Hindiya lagu dhisay waxa la sameeyay wax taaj bulo dhaqaaqay waxa markii ugu horeysay habarir firi waxa la qabtay guddiga abaaraha waxa weeye iyadoo international community one single penny ay san bixin ayaa waxa weeye Soomaalidu ay waxa weeye aad ogeyd wixii laga aruriyay Tanzania kaliya gurbiga fiir habarir waxa shacabka Soomaaliyeed fiir ma jirin 2011 ordigan baa soo gurmaday ilaahay ka sokoowe ayada oo adduunyada dhan naga xiran tahay ayaa Turkishku noo soo gurmaday waad ogeydo waa tii wali wasiiradii xaaskiisa oo kala dagay madaxweyne ordigan asagoo ku maansan asagii shacabkiisa Turkiba oo halkaan uga mahad celinayo kuna faraxsanahay intaas oo heesood inaan u sameeyay maanta marka waxa weeye waxay ahayd abaartii hadda ugu dambeysay UNDP na one single penny kuma siin sideedar waxa weeye dalkan istiraatiijiyada waxa la yaaban yahay waxaan u dhamaan la'nahay abaaraha qoladan oo WFP da iyo UN-ta iyo qoladan donorska waxay keenaan markii roobka la daga ka bacdi inta wax aruuriyaan oo in the name of Somalia ku aruuriyaan bay waxayaan waxay qabadka ugu weyn oo dawladda hadda WFP da beeraha u joogay dawladda oo UN-ta u joogay dawladdu markuu awaamirta u ogaansamo way dawladda waxa weeye waa la cayriyay hay'adihi iska deganaa oo xalane oo ilaa boqolkii xoogaaga dhowrka boqol oo xoogaaga cashuurtii hore iyo mid dambe inta la yiri bixiyaa la yiri ama guur ama awaamirta u shaqeeyay waa la xisaabtanka ugu horeeyeen markii ugu horeysay oo 7 sano leader madaxweyne ama ra'iisul wasaare Soomaaliyeed uu yiraahdo faragelinta Soomaaliya ana laga daayo waxa ra'iisul wasaare soo hadda UN-ta uga yirbaanahay waxa habar yar la rabay marka waxaan rabaa in aad 8 bilood oo muuqatay 6 bilood waa loo fakariyay maxaa la keenay marka waxa la keenay shacabka waxa lagu kala goyn lahaa waxa la hawlgeliyay u fiirso maamul goboleedkaas markii ugu horeeyay bil ayaa Cabdiwali gaas ayaa la yiri ayaa loo yeeray oo heshiis la soo saxeexday Imaaraadka iyo Sacuudiga markii bil laga joogay ayaa Hirshabeelle madaxweynaheedii la geeyay bil kale markii laga joogay ayaa Bay iyo Bakool Sharif Xasan loo yeeray bil markii laga joogay Xaaf loo yeeray faragelinta qaawan oo Imaaraadku ay wadaan waxa weeye waa wax taymin ah oo dawladaha cadawga oo raba Soomaaliya in lagu heedo ku istaagaan oo dhan ay ka wada dhan yihiin waxa lagu burburinayaana waxa weeye waa ii sheeg waxa weeye waa maamul goboleedada 6 bilood markuu joogay ayaa gaas bilaabay waxa weeye waxa ku xigay saddexdii kale taymin si wax loo wada kala qabtay bilbil markay u joogeen markaas ka bacdi baa haddana barnaamijkayga marqaatiga nool oo jimcadeedii kala baxay oo jimcadan dambana aan ku soo dari doono asaga aan ka soo deyn doono telefishinka Universal TV ayaa habar yar waxa ku jirtay marka qalbi dhagax markii la qabtay ujeedadii looga jeeday hees yar oo ka sameeyay waxay ahayd la yaabo kaleeto inuu kula yaabo waxaan kula yaabnay ayuun baan la yaabnay rag shalay wax dhiibi jiray oo maanta la dad baa la dhiibay damiirkeena ana nool falkii la sameeyay shirqoolka la keenay codka kulli faaqan laxanka la dul saaray laabka shacabkayga hobsiina la'aanta wariyaan la isku seegin ma waxaan rabaa inaan erayada waa sax habar inta kaliya dadkan haliyayga la dhiibay
loo loogay cadaawe rag baa 6 bileeto qaranka la yagleelay luqaafo darteeda hurdada la diwaayay dadkan la lugooyay waxaaba lugooyay kuwii la saxiixday heshiis laqdameedka lurkaana dhamaanta laaluushka ku qaatay lurkaan dhacay maanta laaluushka ku qaatay waxaan ka rabaa ujeedka ugu weyn ujeedka marka ujeedka ugu muhiimsan marka habar yar waa dhexdhexaadan ka ahaana siyaasadda khaliijka haye oo khaliijka dawladdu ay raacday dadku ma mooga in dawladdan markii horeba khaliijka ay ka dhisnayd oo doorashadii hore oo madaxweynaha ku yimid iyo kooxdiisa group kasta imaanayna dad un bay deegaan iyo meel bay ku tiirsan yihiin dawladahan carabta iyo ama deeriska aadan ugu wada xirnaa wax cusub ma ahan khaliijka shalay dawladdan wadeeda badan ay ku timid maamul goboleedyada waxay dhaheen dawladahan imaaraadka iyo sacuudiga xiriir ganacsiga nagala dhaxay dhaqana nagala dhaxay soo jireen ah aan leenahay dad iyo dal Soomaaliyeed maxaa horta anaga hadda aan ugu xirnaanaynaa inaga horta waxa la rabaa wariyuhu waa waadiga siyaasadda uu maro dalkan waxa la rabaa dawladdii shacabka ayaa dhalatay adiga waajib baa ka saaran aniga waajib baa iga saaran cameramanka maanta wax naga duubayo oo mawlid waajib baa ka saaran injineerka mulkiilaha Axmed oo halkan kaga mahad celinaya waxa weeye waajib baa ka saaran inuu dalka la dhiso dalkan waxa la rabaa oo lagu haystaa waxa weeye anagu diiniyan aqli iyo diin iyo xisdi iyo dhaqan iyo wax walba walaalo isla dhashay qaliijul arab waxa weeye qayb kamida sida Djibouti anaga noo tahay ayay qadar ka ahayd United Emirates Arab kamid ah anaga isugade ma horta intaadan taas gelin waxaan rabaa qadar iyo Imaaraatigu isku mid bay ahaayeen sida Charja iyo Dubai ay uga mid tahay Abu Dhabi isku taga midowga United Emirates Arab sida ay u tahay oo kale ayay qadar ay qayb ka ahayd markii ay go'een qayb Sacuudiga qayb ka qaatay qaabna Iran baa ku soo duuray markaas ka bacday Mareykanka keensaday dad walaalaha isla dhashay sida anaga Djibouti aan isku nahay sida anagu aan isku nahay maanta takiilka shanaad sida aan NFD isku nahay sida aan oo kale ay weeye dadkan maxaa marka kaaga aadan adiga waxa nooga aadan anaga fa aslihu bayna akhawaykum waxa marka walaala muslimno ay isdiriraan waa in aad si dhexdhexaadnimo aad u gashaa dadkan waa dad muslimiin diin baa naga dhaxaysa kalimatu laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah naga dhaxaysa maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu qaatay sidii adduunka inta xorta ah ay u qaadatayba in waxa weeye loo dhexdhexaad laga noqdo Mareykanka hadda wada oo waxaan waa isku aabe waa kala hooyo waa kala hooye waa isku aabe Mareykankaas laga wada xukumaa qaliijul arab iyo caalamul arab oo dhan وانا كلا هوي او هدا مغعيه كلا ليهنا ama imaaraat u bixama qaradar u bixama sacuudi u bix sidaas awgeed hadda waa la socotaa Donald Trump baa wuxuu wadaa in ay u heshiisiyo dawladda Soomaaliya caalamkuna wuu ku amaanay waana ku amaanan tahay tii ka horeysay Iran baa la yiri xiriirka u gooyay dawladda Sacuudi Carabiya 50 milyan bay u ballan qaaday hal shilin lagama siin Xasan Sheikh Maxamuud iyo ragiisi xiriirkiina waa u gooynay Iran waxaan tabar u lahayn colaadaan tabar u lahayn waa dhaxgal waxa weeye base baa la siiyo waxa weeye waxa la siinaya waxay hadda u ordahayaan dagaalka xuutiyiinta lagu la jiro inay anagana soo dhaxgeliyaan oo dabkii ayna dhaxgalaan waxaan anagu tabar u hayn laba maroodi meesha isku dirirayso waxa weeye caws baa ku dhamaada annaga dhexdhexaadkii ugu fiicnaa baanu ka qaadanay dawladdii dhexe sidii ay yeeli jirtay dawladihii hore sidii ay yeeli jireen annagu caalamka oo dhan Cabdirashiid Cali Sharmaaka markuu inta Westernka uu wax ka waayay Raashiya la xiranayay ciidamadii Soomaaliya dhiseen Allahu naxariistay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaaka Maxamed Siyaad Barre markii inta carabtu kala dhado carab oo dhan ay ka gooday xiriirka Masar u goosatay carab waxa weeye wuxuu yiri waa Anwar Saadaad asaga raacnay maxamed Anwar Saadaad buu raacay Masar baanu raacnay mowqif qarannimo ayaanu qaadanay ma cidna qoor gelin karta oo waxa weeye anaga waxa la geel qoor qabad kuma biyo cabo qaran baanahay qarannimadeeda in la xushmeeyo ayaanu xaq ugu leenahay xaqana midna ma ahan dad walaalaha wada dhashayna inaan anagu wanaag mooyo wax kale aan ku kala dhaxno tixda aad tirnaysa heesta ahayd waxay ka turjumaysaa qalbi dhagax iyo sida nidaamka loo dhiibay iyo dadka ka hadlaayay maxaa kula muuqda horta dhiibistiisa sax ma ahayd nin Soomaali ah oo wadankiisa jooga in hadda maanta Itoobiya loo celiyo inagu boqolkiiba boqol waxyaalaha la rabo in character assassination Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in lagu la sameeyo oo taariikhda madow la rabo in loogu yeelay kamid ahayd taariikh Soomaaliya waxay taariikh u lahayd iska dhaafnin Soomaaliya oo nin Ethiopian loo dhiiba ama nin gaala loo dhiibe annagu waxaan hayn jirnay Mala Zanaawi iyo Afwarga
labadii kala qabsatay Eritrea Ethiopia ayaan hayn jirnay Ethiopian baanaan Ethiopian kale u dhiibi jirin taariikh annagu waxaan leenahay iska dhaaf bal wax kale qofka Soomaaliga oo waxa weeye in la dhiibe constitution-kayga waxa ku qoran in aan la dhiibi karin qofka Soomaaliga waxaan ku sheegayaa marka adigu waxaan rabaa inaad iiga jawaabto 15 sano ayuu baraxley ninkan wuxuu ku qabay xaas ciyaal buu ku dhalay 15 sano joogay 3 sano iyo bar ka hor ayuu ku dhaawacmay dagaalkii Onalef way ogaayeen Ethiopiaanku way la socdeen sababta inta la qaaday oo galmudug looga soo qaaday oo la keenay magaaladii dhexe oo waxa weeye inta afar u shirtay iyadoo maamulkiisa ka warqabin la dhiibay oo waxa weeye haba yaraatee lagu la rabo in Soomaaliya in madaxweynaha iyo shacabkiisa la rabo lagu keeno ii sheeg haddaba waxay tahay wax kala ma aha waxa weeye fiiri falkaan la sameeyay shirqoolka la keenay codka kulli faaqan lacagka la dul saaray laabkaca shacabkayga hubsiina la'aanta wariyaan la isku sheegin waxay ahayd completely wax la rabo shacabka Soomaaliyeed in lagu gilgilo markuu taas ka baxay isugade taa markuu ka baxo xaaf baa inta la geeyo loo yeero ugu dambeysay laba asbuuc ka bacdi ayuu si toos ah wuxuu yiri anagu waa qaraab tagayn waxay ku tusinaysaa in geedeed iyo good hoosaba loo koray in qarankan jilbaha loo dhigo rag waxa weeye toodii kaamishay taayadiina u soo jeeda ayaa waxay rabaan in aan shacabkan Soomaaliyeed iyo dawladdiisu aysan la jaan qaadin waxa la diidan yahay waxa weeye inaan cagaha ku istaagno inaan ciidamada dhisano inaan niraano tan aniga ma aha aniga shirarka markaan ka qayb galay xamdi kadii waxaan ku jiray saxayaashii road mapkii 2012 garowo 1 iyo garowo 2 ilaa iyo halkaan markii golf line-ka markii lagu saxiixayay mahiga iyo ragii la bilaabaan ku jiray annaga shirka markaan galno markii nala keeno qofka Soomaaliyeed shirkaas baajkaana loo geynaya magacayaga waxaan ka soo diraynaa maalintaas 8 bishii labaad 2000 2012 ayaa la iga soo qaaday gobolada dhexe diyaaradda iyo waxa dhan waa laga soo dhiibay ma iisug shirka markaa nimado golf line-kana lagu xareeyay oo international community iyo joogan iyo dadkii oo dhan waxna la weydiiyay ma jirto ugu yaraan waxaan ka qayb galay dhowr iyo 10 shir oo abuuga la haystayaasha haysta ayaan haysta aan rabo inaan uga hadlayo qofka markuu u tago bardhiin baa loo qorayaa lacag yar oo maalinle ah wax la weydiiyo male ajenda dhisan ayaa la rabaa in adiga lagu fuliyo mar allaaliya markii ajendahaas u dhamaadana miidiyaha loo yeerayo sidii filimkii ilbuuna ilbruta ilkatiiba oo kale dabada guud aglo kale askartii dhimata inta gacmaha lagu qabtaa la leeyahay waa baariyahay walaacsan araryaso ban markaas la leeyahay mudane maanta shirka ka soo qaybshay ka markaas leedahay wallahi shirkaanu dagaal badan ka bacdi Nile Baytin waxaanu isku afgaranay markaan qudiyaha isku xunay arinta Soomaaliya si fiican uga wada hal xabba kama jirin baajkaana loo sameyn jiray bardhiinkaygan qaadan jirnay oo maalinlaha marka allaaliya markii aan sameeyno danaha maalin baan istaagay markaas waxaan ku iri war arintan ajendahan ka hadlaysiin annagu mana ogin mana aan saxiinan see warbixin uga sameeyna communique markii la rabay in la soo bixiyo donorska gabar ka socoto oo Amerikaanka cid walba taqaana waxay tiri we the donors you have no say wax aad dhihi karto ma jirto annaga deeq bixiyaashii wadanku waa la haystayaasha is haysta ayaa shacabka haystay maanta waxa u dhalatay qorraxba u soo baxday dawlad leh not in my name aniga magacayga kuma bixinayo oo wax diidayso wax dooranaysa noo timid waxa weeye waxaana lagu jilaafaynayaa waa maamul goboleedka iyo caada qaataha iyo waxa weeye ninka baalkii gumaystaha u shaqeeya wax maanta bilowdana ma ahayn waxaan uga digayaa shacabka Soomaaliyeed iyo adigaba 2009 markii aan shirkii ahlu sunna wal jamaa iyo dawladda dhexe aan kaga qayb galay dib heshiisiintiisii aan kaga qayb galay arday sababa oo 34 nin ee af Soomaaliga la baray ee Soomaali lagu kala qaybinayo aan arkay maamul goboleedka madaxtooyada dadkii dawladda ka socday Sheraton baa la dejiyay kuwayga ahlu sunna waxaan la dejiyay Hilton kuwii Puntland waxa la dejiyay Gion kuwii Galmudug waxa la dejiyay Xabasha Hotel categoriga loo kala sameeyay oo aan ogaaday waxaan inay waxa sida ay u socdaan inaan wax faran ugu jira aysan jirin baan gabay la yiraahdo waxaan tiri inta kale aan rabaa ma halkan ma waa in yar habar yaray calanka gafweyn laga galay culimadiisa ma cimriye ninkii caasiya ciida hooyadii cadcad baad u kala goosateen calanka weynaaye cid walba mid bayelato loo cimaamaday cadow bay u kala dhuumatay cabiya dhigooda ayaan tiriyay waa dheera gabaygu laakiin adigu maadaama adiga codsatay YouTube yadu ku jira gabayga calanka la yiraahdo habar yar
waxaan waa wax la og yahay xamdikada iyo dalka iyo dadkan waxay sugayaan da'yartooda waxaan u baahannahay dawladda Soomaaliya inay mowqif ka qaadato United Imaaraat Arab waxaan u baahannahay inay safiirkooda celiso oo goyso waxaan u baahannahay in shacabka Soomaaliyeed maadaama dawladii ay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leenahay tawaaduca iyo waxa weeye jileeca iyo go'aan qaadasho la'aanta dawlad laguma maamuli karo waxa loo baahan yahay waxyaalo badan oo la tabanaya shacabka Soomaaliyeed minaad maamul goboleedka aad ka qaadato go'aan waxaan kama u baahannahay inaad cilaaqaadka u goyso United Imaaraat Arab waxaan u baahannahay in aad dalkan qarannimadiisa waxa weeye anoo og oo bilateral iyo blight and professional sideedii aad rabto already ra'iisul wasaaruhu u dacweeyay imaaraadka iyo dawladaha fargelinta ku haya oo adiga oo la fadhiya ra'iisul wasaaraha Ethiopia adoo la fadhiya uu yiri mar dambe ma fargelinayno anigu ma jeclaan lahayn in la fargeliyo aad ka dacwootay aad kaga hadalsiisay taasaan waxaan u baahannahay in inta lagu sii dhiraado 48 saacadood safaaradda lagu jaro 48 saacadood wadanka looga sar annaga khaliijul carab ayaga noo baahan anagu uma baahnin waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed maantay inay kacdoon sameeyaan isbiriin carab baa loo baahan yahay waa in la tuuraa maamul goboleedka cabdiweli ninka jilicsan hooyo ma dhalin mar alaaliya markii wax yar khalkhal oo Puntland ka dhaco intuu Ethiopia taguleeya ma la xaliyay waxaan rabnaa in shacabka Soomaaliyeed mudaharaad joogta la dhigo waxaan u baahannahay bay iyo bakool lehel waaba u dambaysaa la yiri Shariif Xasan wax badan buu nasiib badnaa wax badan buu waxa weeye dawladdan uu gadaasheeda uu inta Ilaahay ka badbaadiyay uu asoo ka soo muuqday waxaan u baahannahay inay ku baxaan inay maanta dhacdadan ay dhacday inay ku dhintaan waxay mutaysteen oo ku dhaxan constitutionkii qodobka 54 ayay jabiyeen waxay galeen heshiiskii dawladda fursadda la siina waa la wada tashigii 8 qodob ku sheegay hadda la tashayayba ayaga ciidamadii markay soo dhiseen ayaga markay wax walba seenay amniga qaranka lagala tashaday markay wax walba la sameeyay we feel dawladdu way samaysay inteedii in ka badan shacabka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay qarannimadii waxay ersanaysaa filinkiina loo soo dhigay oo maamul goboleedka iyo 4.5 iyo federaalka anagu mabana ablay kaasu maba Soomaalida maba qaban karinba Kenya oo kale intaas qowmiyadood ba isku ahayd war waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed ha kaco mudaharaad ha la dhigo taayirada ha la gubo hana laga qaado nimankan warloorada bay khabar horta aan is dhageysano waxaan ka rabaa time-kan waa yar yahay waxaad sheegtay waraysi hore oo barnaamijkaaga marxaatiga nool waxaad ku sheegtay waxaad tiri dawladda dad baa samaysto iskale dawladda hadda jirta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay madaxweynaha ka yahay milkiilayaal baa dawladda la haatir markaas waa dhaliilaysay haddana waa difaacaysaa yeeyeen horta milkiilayaasha dawladda iskale dawladda Soomaaliyeed anagu naqaan waa saxantahay xamdikadii waxaan ku sheegayaa anigu waxaan ahay abwaan dawladdii hore hal sano iyo 4 bilood markaan Muqdisho joogay ee habka wax u socdaan aan arkay ayaan waxaan sameeyay barnaamijyo badan oo isdhexgalka waa soo koobaya sloganaan bixiyay sloganada waxa ka mid ahayd saddexda muuqatiye 8 qarsoon saddexda waa la wada yaqaanaa 8dana waxa weeye waa sheegay tan waxa weeye dhaliisha talay ahayd madaxweynaha dhaliil anigu ma soo jeedin tan labaad waxa la yiri walaalka xoolaha waa la siiyaa laakiin xaniyaha lama siiyo shacabka Soomaaliyeed maanta waxaan u imid oo halkaan uga hadlayaa barnaamijkan ugu soo casuuntay inay wax iga faa'iidaan haddii marka anigu aan saxweeye aan ahay haddaan iraahdo xamdikadii wax macnaa sameynaysa male talada aan siiyo waxay ahayd madaxweyne Soomaaliya oo dhan baa ku taageertay waxa lagu taageeray maal iyo maskax ragii maskaxda waxa weeye dhaliilo badan baa ka soo yeeraya ragii maalka lahaa oo maalka kugu maalgeliyana waxay noqdeen mulkiilayaashii madaxweynaha sloganka aan sameeyay mulkiilayaashii madaxweynaha ahayd mulkiilayaashii madaxweynaha waxa weeye maqaam kasta wuxuu leeyahay hadal walba maqaamkiisa leeyahay saddexda muuqata waa la sheegay laakiin 8 qarsoon ma aanan sheegin hadda waxa weeye mulkiilayaasha maalintooda la sheegayaa habar xamdi gartay awliyo aniga waxaan kugu ogaanaa taa guddiga xubin ka mid ah guddiga oo taakulaynta ciidamada hadduu xil kale oo dawladda u haysan adaan noo sheegaysid shalay dawladdii ku horreysay mucaarada ahayd Ethiopia markii laga hadlo qofka ugu horeeyaad ahayd maanta wixii dhan difaaca ka soo haray ma afhayeen dawladda tahay ma xilaana ogeyn baad haysaa maxaa shalay arkaysa oo maanta aad u jeedin bravo aad waxaan ku faraxsanahay barnaamijka marqaatiga dhool bilowgiisii heeskii hayay Soomaaliya kaca hayay dalkii halis buu galay dul habar qabaybi waxba aan hambaynayn Soomaaliya horta inaad adigu iga qaaday oo marqaatiga nool barnaamijkii ugu horeeyay inaad samaysay
hal sano iyo 4 bilood ka hor isla barnaamijkaas waxaan ku sheegay 21 barnaamij oo isdhaxgalka ah oo dawladda u sameeyay hal sano iyo 4 bilood raysano bogsano rubalays ka jara iyo qabiilays ku raadsad alla nooga raaye waata israacado la ruxaya calamada xasan sheekh maxamuud baan u sameeyay waxaan sameeyay riwaayada qarsatay maydan qaleen waxaan u sameeyay gabagabadii shabaab ee guusha shacabka waxaan sameeyay islaamaysay maxaa dhaxasheen waxa soo dhan mid walba waxa ku jiray heesood iyo sugaanteeda dawladda ayay ahayd 21 barnaamij oo isdhaxgalka bulshada oo ciidamada tii laga oohinayaan sameyn waan garab istaagay markii aan ogaaday ayaan soo noqday barnaamijka marqaatiga nool oo 51 qalcadood ka samaysan oo 6 kamid ay ka baxday Universal TV ayaan ka sameeyay xaq baan u leeyahay inaan u imaado heestii ku jirto kala waxay abwaan xumaha diiday waa abwaan xumaha diidiyo waa yeelku ducadiya in dardaaran dhaxalgala shacabka ugu deeqa dadku ay ka sugayaan qadadoonka liitiya damano intuu kan damiirka ay faraya aniguna digniin culus aanu dira dadweynaha ruux kasta oo damiir low dalka halis ayuu galay duul habaar qabaayim dadku ay ugu yar xulafada damajadi inta aan la dabargeyn Soomaaliya isdaba noqay ahayd moogtay maanta marka waxaan xaq u leeyahay hal sano iyo 4 bilood oo siiyay xasan sheekh maxamuud inaan maxamed cabdullaahi farmaajo siiyo aniga saddex xil baa la ii magacaay saddexdana ma tigin oo dawladdan ii magacooda mid walbaba mid ka badanna waa ka rajaynaya macnuhu sama aha xil iyo xil la'aan sidaad u sheegtay markaan dhaliishu u sheegayo macnaheedu waxay tahay indha lay gaduujiya gabgabta iyo bootada goodi beenaya faan laabtay ma geliyo waxaan nin geesiya guri laygu baadiyo googo iyo maryuumaan laaluush ma geeyo oo gool loo ma gadan karo aniga layma gadan karo laakiin waxaan rabaa waxaan ahay madaxweynuhu waqti buu leeyahay wasiirku waqti buu leeyahay safiirku waqti buu leeyahay laakiin abwaanku waqti ma laha wuxuu leeyahay hoga tusaaleyn iyo hagida ummadda Soomaaliyeed sugaal Cabdilla intuu sameeyay intii xadraawi uu sameeyay gaari intuu sameeyay Mustafa Sheekh Alminta Cabdi Maxamed Amin intuu sameeyay aniga martile igaya maxamed cabdullaahi farmaajo Allahu akbar ya salaam alaykum iskuma xigaan dawladda hadday dhalatay intay qabatay 22 barnaamijkaas wax qabad 20 qodob oo ay qabataan uga sheegay jimcada soo socda 20 kale oo wax qabadkii dawladdan uga sheegay baan rabaa inaan ku soo sheego waxaan rabaa inaan waxa ku jira hees la yiraahdo inta yarta way habre moraalka shacabka dhowra macnaha qarannimada dhuuxa maamulka muranka kala qaybsan daaya mooshinka lagu daalay jooja marooqsi xilmaha guulla madaxda waqtigeeda siiya midnimo ku shaqeeya heedhe dhashaya maandeeqa maala muujiya sama iyo iskaashi dadkaad matashaan u hiisha marooqsi xilmaha guulla madaxda waqtigeeda siiya hees la yiraahdaa ku jira waxaan rabaa inaan garab galo ilaa hal sano iyo 12 bilood waxaan diyaar u ahay maalintii loo mutay inaan dhaliishooda sheego nobody shalay awliyo waligii sidoo ahaa hadafkaasaan leeyahay qarannimadayda ay hogaamisa حتى انتي وحوي نفط اي قد عدنا دالك يا دادك حتى ماكو امن سنه محمد عبد الله فرماجه انا با اسكو هايستبا انا دالك ليهي انا با اسكو هايستبا ادينك يا انيغا يا اديغا اسكله دولكان waxa iskale heeska buugan kowgiisa tudciisa lagu furaayo taariikhda Soomaaliya dhaxalka wadanka Soomaaliya dhaxalka taariikhda Soomaaliya dhaxalka wadanka wadaniga ee aan anigu qoray waxa ugu horeeya heeska la yiraahdo tudac markaas oo kala furto tudaca koobaad ugu horeeya 12kiisa tudac waxa lagu furaayo kan dhulka yagiyow dhaxalkii awoowow hantidii ilmaan dhalan kay loogu dhagayow rabbi nacab ku dhacayo dhagar qabaha ka dhowr wax u dhiba dadweynaha hantidii ilmaan dhalan kay looga dhigay dhulka adaa iskale ana iskale kan daawanaya iskale waa inaan dhowrana oo aan madaxna aan ku hadlayn maamul goboleedna aan ku hadlayn wax iska kay bedelay ma jiraan waxaan arkaa boqolkiiba 2 kullu naas fi khada waa dhici karta waxyaalo ka dhacay dawladda inay jiraan barnaamijkaygana waa ku sheegay kana waa ku sheegay 13 qodob ayaan anigu nood gareeyay oo dawladda oo qalad ay gashay laakiin nobody is perfect وحوي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أيال ليه وشاورهم في الأمر مركا أنه وحنا إنا تايم سينو ما وحوي مراقص حلمها ما بلاحظ وقت كده سيا معارض كسدي سبق وإنه يهرت معارض واحد صحيح نعم قفك معارض نمديس إنه يكون أكاتو دولة أن حل كهلو مالين كان كهلو ودولة هاي مالين كان كواين وعيتما معارضة هاي أفهينا ذا الأذى أفربتين تطبضنا وح أركاسان وكلت وحود دفاعي شلنا هلاي برينا لقيا بين دحيل كواين هذا خيليان ما لقيا واحد إيش يتصدق حلنا دويسي أنا هذا شيء أوديدي قولي منصب كأراد ليس ما يمدي صدق حلا ليس وجدياتري أنا قادن قرنك دلك يدتك الصومالية هدي waxaan diyaar u ahay in xaqanka u qaato sida ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo halkan ka salaamayoon aad u jeclahay Thabit ay qamiis walba ay u xaqaan dhulka
anigu waxaan rabaa dhulka in aan ku waxa weeye tooreeyaa laygu dhiftay wax walbaa laygu waxeeyey diyaar dalka aabbahay awowgey waa u dhintay ayeedayna waa u nin beeshay dalka inaan maxaan u noqon waayaa haddii wax yar hoggaanka u gudbo wax yar hadduu seego hadda waaba kuu sheegay kandha badan nolosha dhabigu tilmaane dibinoo dhigayo walle kuma dhaafno kaanu dhawaaqne dhegta ugu sheegne dhowrsanna waayo walle kuma dhaafno haddaan inta u sheegno oo uu naga dhegaysan waayo ee uu dhinac uu maro oo maxaan nahay waxaan baahda shamsi buu mudanaya waajibkaana nagu leenahay moraalka marka iilkana la dhigo habar yar اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسابا اللي يراهد أنا وحنا إلهي الله ارتقنا ربنا حب الوطن وسنة رسول الله عليه السلام وطن كأنك أسكال دتك أنك you think واحد كلتا يقف كالصومالي أو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله يقان أو كان جارة إن دلك الصوماليات رفات كيدبات هذا يدي مدابيد اللي جي سنة آخرين وحلقوا يدينا ما كلتا آخر حساب أنت أنا كسوجيسا أنا السوجيسا عدول بين السوجيسا شعب الصوماليات دون هل سؤال تي قلبي دقح أهد واحد إيش أكتي رد شري باقود بيي رئيس وزراء شغلكم الهنا ترم مدحوينها شغلكم الهين وانا لبدي ugu sareeyay dalka hogaaminaysay ma amaanaysa misoo dhaliilaysa dad mas'uul oo wax ka socdo magaalada ka warqabin nin abwaanna waa tahay aad iyo aad baad u fiicantay adiga laftaadu leerakiin iyo maxamed axmed xasan cuuka iyo cabdisalaan hareeri iyo raggii bahalada ahaa ayaa rabtaa inaan ugu noqoto anuu marna kuma dhihin afka ii gelinaysaa cabdullaahi xaaji oo kale ayaa rabtaa si maxamed siyaad baro kale inaad afka ii geliso ku raiisul wasaaruna moogan madaxweyne moogan waxaan may aba yaraatee ma ku dhihin barnaamijkan waa sidaanuba ku qurxoon yahay horta inaan adiguna dhabta ka hadasho anna aan ka hadlo xamdi kadib balse waxaan kuu sheegayaa hanaqaadku qaariga hurdiya halaqayuu laacin anina hadal loo hosgeliya habar maahi dabaal hore hir loogama gudbay ayaan raku hortaagin waxaan kuu sheegay I am awliyo af Soomaaliga anaa ku quuta anaa ku qaraabta ninkani shirqool buu ahaa shirqoolkaas waqti bay leedahay suugaan baan kaaga keeno waxaan kugu iri haliyeyga la dhiibay loo loogay cadaawe rag baa 6 bilooto qaranka la yagleelay luqaafad darteeda hurdada ladi waayay markeeda ayaan macnaynaynaa heesta iyo sugaanta ilaada iga joojiyay dawladdan dawlad Soomaaliyeed waay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii dalka waay waan ognahay maalinkii la doortay maqaamkii dadka iyo sida ay u jeclaayeen ka hor asoo 6 bilood wasaare joogay ayaa loo banaan baxay maxaa taloo siinaysa suurta uga faa'iideysto hadii uu nala socdo this is a real waa productive waa wax aad iyo aad wanaagsan aad iyo aad dadka mucaaradaysa maxaa taloo siinaysa nacam billah dadka mucaarada ayaan ku horeynaya walaalaha Soomaaliyeed aniga qalbi dhagax marka la dhiibay cadawgu wuxuu u qaatay inay anaga wax noo dhibayaan laakiin anaga waxaan ogaanay millions maxamed cabdullaahi farmaajo kala wadani ah oo qalbi dhagaxa inay noo dhasheen waxaas mudaharaad la dhigayo waxa la ordahayo Soomaalidu inay wali dareen leedahay oo kunsaan leedahay boqolkiiba 2,000 ayaa muujinaysa aniga xarunta UNDP UNta ayaa wiilal turjumaano barnaamijkayga marqaatiga nool oo translation laga sameyn jiray oo gaalada loo turjumayay waqtigii Nicholas Cage ayaa loo turjumayay ilaa markii dambe la yiri UNDP da ku fagaraysayaal oo diiday shacabka Soomaaliyeed waxay muujiyeen inay wali nool yihiin waxaan leeyahay ishii bugtaay ku bikaacso kuwa islaha way dhinteen wali waa noolnahay shacabka marka waxaan rabaa in aan talada aan siiyo ay tahay iyo mucaaradka waxaan leeyahay mucaaradka intaan anigu waxa dhan baan isku qaado shacabka Soomaaliyeed ba iiga muhiimsan waxa la isku dirirayaa waa shacabka oo shacabkan dawladdan waa dawladii shacabka dawladda in la kala jaraa la raba mucaarad waxba ma qaadayo warigeedna waa jira waana jiri doona nabi maxamed alayhi salaatu salaam baa la yiraahdaa adil ya maxamed nabiga la dhaliilay alayhi salaatu khayru khalqillaahi وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون أنك وحوي عارض حنا محان حلو ويا رج وحنا حدود أوجي يجوا محبط حير الشيء حشيء عنسي حشيء لا يحكي ودبيس نشلا أنت أسوي قلد ودنقل ما أنت لا أنا ودني وحلا وحي يجوس ودقي نور كسيال بيسو وحن ربا إن أنصاره أود إذا شعب كصومالية دو مامل قبلات كوادو الدين بالله عليكم حاف وحيري waxaan aaday imaaraadka anigu u qaraab tagay subxaanallah ilaahay baa ka hadalsiiyay waa jeclaan lahaa klibka inaad soo geliso iisug
ninka la yiraahdo dawladdu golihii wasiirada intii bay ku celiyeen qamiistii dhaweed haddaadan ogeyn waana hubaa Universal TV in laga sii daayay in sidaydii baan taaganahay dheen they will never be change inay meel dhaxaadkooda noqdaan maxaa Cabdullaahi principle hor yaala ay wax ku wadaa qof walba vision buu leeyahay hogaamiye walba wuxuu wataa hadaf uu dadka ku hogaamiyo principle-kiisu wataa aanan ku garanti garaynaya inuusan ka leexanayn wax walba la isku dayo waa la jilaafeyn karaa laakiin he will never waxa weeye ma ka leexanayo wadadiisa shacabka waxaan leeyahay waxa la idin keenay ama maamul goboleedka ha noqoto ama qalbi dhagax ha noqoto waxaas oo dhan adinka in madaxweynaha la isku keendiro cadawgii Soomaaliyeed adinka iyo madaxweynaha inta la iska keen reebo madaxweynaha dhagax turtin dawladda Soomaaliyeed halka ku dhamaato wixii bilowna oo la isku dhoodhoobay ku meel gaarkii oo laga baxay wixii oo dhan halka ku dhamaadaan waxaan idin leeyahay walaalayaal ama nacabka taakuleeya oo wuxuu rabay inaad dawladda nacdiin oo ka hartiin bay ahayd walaalayaal garab istaaga nacabkiin ama dawladda garab istaaga oo 12 bilood si oo waqtigeeda garab istaaga hoga tusaaleeyo walaalayaal Roma did not build one day hal maalin Roma laguma dhisine waxa weeye dawladda garab istaaga maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumadda waxaan siinayaa talo waan ku ogahay inaad macaan tahay madaxweyne gabaygii 2012 aan kuugu tiriyoon Xasan Sheekh Maxamuud loo geeyay oo aan prime minister in lagaaga dhigo ayaa waxa ku jiray waxa weeye magacii rasuulku wata Maxamed Keenni calayhi salaatu salaam waa Maxamed waliba ibn Abdullah nabigana waxa la yiraahdaa Maxamed ibn Abdullah magacii rasuulku wata Maxamed Keenni waa geesi muuqdiye haliyay lagu maqsuudaa ma yaqaan dagaal iyo khilaaf madax la qaadaya mudaciyo waxa lagu yaqaan hadal macaan badan mana jiro mataalkiis dunida malaha kayga marka waxa kaaga wadaa macaanka waxa la rabaa dawladda tan inay seefku wadato tan inay malab ku sidato haddii aadan go'aankaaga qaraar aadan qaadan wallaahi inaan qaran dhismayn ordigaa ninkii dhisuu banaanka dhigay Maxamed Siyaad Barre Cirro iyo raggii rabay inay bridge ka dhigtaan oo rabay inay asiga ku meel gaaraan ayuu waxa weeye 22 sano markuu nin mowqif loo hadaf labo aaye 22 sano wuxuu ku gaaray mowqif adag u qaatay waxaan ku sheegayaa ma jiro isbedel aan wax qaraar loo liqin ma dhici karto waxa weeye marka waxaan ku leeyahay madaxweyne mowqif adag ka qaado dawladaha ku jilaafaynaya maamul goboleedka mowqif adag ka qaado waxaan ku leeyahay macaan iyo isma madaxweynenimo isma gelayaan macaan iyo madaxweynenimo isma gelayaan waxa la rabaa inaad mad qaraar qaadato adiga nabadoon ma ahida waxa tahay leader go'aan adag waa inaad yeelataa waa inaad go'aan ka qaadataa shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ballanteenu waa in taageerada la gubo waa in maamul goboleedyada laga soo horjeesto waa in aan tol hadaan tol beele Soomaaliyeed hadii Soomaalinimo ay jirto waa in waxa weeye la garab istaaga dawladda aad baad u mahadsantahay Maxamed Xuseen Owliyo ambassador Owliyo ayuu ahaa oo booraysiga toddobaadka marti inoogu ahaa waxaan Owliyo kaaga mahadcelinay waqtigaaga qaaliga iyo sida stuudiyaha noogu soo booqatay iyo sida sareexada leed nagala qayb gashay barnaamijka waraysiga toddobaadka mar kale iyo mar labaad waa mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay xamdi kadiya waan kugu mahadcelinayaa barnaamijkaagan qiimaha badan ee shacabka Soomaaliyeed ay wax badan ka faa'iidaan aad u mahadsantahay